بسم الله الرحمن الرحيم ولي waxaa inoo socda casharadii office-ka oo 2007 aan ku qaadan lahayn marka waxaan soo guda galeynaa bandhigeeni halkaan aan soo imaanay Somali Star Online Training Protocol of the Computer Management aan baranayna casharada Somali Star Online Training ee bixisa hadda wax yar kaga dhaco waa English Language and Computer Management Teaching bay bixisaa oo wuxuu isugu jiro computerka casharadiisa kala duwan programme kala duwan way bixisaa waxay kala bixisaa English language baa laga bartaa oo si hufan looga dhigto marka Somali Star Online Training waa xala soo xiriiri doontaan Gmail iyo akoon dahabshiila $10 kaliya ayuu qofka iska bixinaya casharadana emailkiisa ayaa lagu dirayaa waxa raacin doontaa magacaan ayaa raacin doontaa marka akoonka lacagta ku shubtid maxamed axmed barre marka escape-ka iyo fiber-ka iyo imaha waa la soo xiriiri kartaan macalinka markuu online-ka yahay inta badan marka waa muhiim jiddan taasi waa taas okay another option cashirkeena office ayaan soo gadagaleynaa oo office 2007 inaan ku baranno office 2007 word ka bilaabayna sidaan hore u sheegnay word ayuu ka bilaabanayaa cashirkeena marka office-ka waxaan soo baranay sida loogu duubo computer-ka iyadoo aan customizing aan tusay sida loo kala qaybin karo hadii la doono waana muhiim jiddan taas inaan aragno marka office-kii ayaan soo gudagaleynaa waxaan soo gudagalayaa start button-ka aan tagayaa waa kana Microsoft Word baan soo dooranayaa marka aan soo doorto ayuu cashirka bilaabanayaa oo 2007kii ahaa marka hadda waxaan ku guda jiraa waan isticmaalayaa toolbar-kayga uu iga qarsoon yahay oo toolbar-kayga minimize the report baan soo dhahayaa halkaan si fiican indhaha ugu qabta waa meesha ugu muhiimsan office 2007 office 2007 horta main office-ka waa kan waa xawaaya fail marka dooratid waa office 2007 badhanka ugu weyn okay muhiim jiddan way kaasana barataan save baa imaanaya oo waxaan ku baran doonaa option kala duwan options-kan marka Soomaalidu waxay iska isticmaalaan kanay ku save gareeyaan oo waxay ku save gareeyaan Word document 2003kii ahaa 97 bay ku save gareeyaan laakiin 2007 wuxuu u ekaanayaa sidaas Word 2007 saas uu ekaanayaa madii aan saa iraahdano wasaas ku save gareysmayaa marka waa ka noqonaya oo document waxaan imaanayaa office main office-kii weynaa baa imaanayaa oo lambarkii marka halkaan marka aan joogo si fiican baa u fiirin doontaan haddii kan aan ku save gareeyo wuxuu raacsiisan yahay 97 iyo 2003 wuu raacsiisan yahay laakiin Word kan markaan ku save gareeyo waa 2007 oo formatting-kii 2007 ugu dambeeyay waay default-kii marka waa muhiim jiddan taas inaan baranno marka document markaan save gareeyno document baa noo soo baxayo waxaa sababay markaan document walba save gareeyno document uu soo qaadanayaa markaan spreadsheet aan save gareynana wuxuu soo qaadanayaa workbook uu qaadanayaa document wuxuu qaadanayaa adaal rabaa magaciina ka badashid documentiga marka ugu horeeya asiga document uu qaadanaya halkaan marka aan joogo waa new document baan arki doonaa marka new document oo aan ka soo bilaabayno blank document baan arkaynaa halkaan waa blank documentiga oo bilowga ah meeshan ka soo bilaabi lahayn kan waa blog post markaa sameynaysid kan waa blank document halkaan si fiican aan fiirsano marka installation template kale aan ku install gareysan karno ayaa halkaan noogu yaala oo noogu duuban haddaan rabno ku install gareysan karnaa template kale haddii aan rabinna waa ka tageynaa oo ma u baahnin haddii aan template aan rabinna waa ka tagi karnaa haddii kalena ku soo install gareysan karnaa waa template qurux badan oo lagu sii diyaariyay halkaas marka template-yadii aynu tusi lahaa waa kuwan oo marka new doorto blank document baa imanaa template-yada haddaan rabno ku install gareysan karnaa marka internet-ka inuu noo joogaa muhiim ah my templates waa kan my template-yada hadda diyaarka waa kuwa kan oo template-yada aan isticmaali doonaan ka wadaaye marka waa kuwan template-yadeeni oo template-yada aan isticmaali doono kuwan ay noqonayaan oo templates waxa weeye bandhigyada waraaqadaha aan isticmaali doono mustaqbalka marka halkaan waxaan joogaa Microsoft Office Online haddii aan rabo kaas weeye feature-ka animalis marka waxa halkaan inoogu wada qoseeyo dhan waxay ka hadlayaan template-yada aan isticmaal blank document-yada aan isticmaali doono aan qori doono ay hordhac u yihiin kuwan marka okay good taas waa wada fahanay mainka meesha ugu mainsan oo isticmaal warqadda hadda aan isticmaalno blank document-geena kan ayuu noqonayaa oo saan ayuu ku soo baxayaa marka casharadaynii imtixaanaha ahaa ayaan ku guda jirnay creating baan leeyahay kan ayaan sameeynayaa marka halkaan marka maxaa aan ku arkaynaa clipboard wax la dhaho clipboard waxa weeye waxa la isku dhahaa formatting and painting
halkan clipboard baa la isku dhahaa intaana clipboard la isku dhahaa intaana waxaa la isku yiraahdaa clipboard waa farta meeshaan ka bedeli lahayn oo farta noocay doonto ha noqotay meeshaan ka sameeyna halkan waxaan ka bedelaynaa lambarka farta laakiin iyadoo default ah xag soo arki doonaa halkan marka waa quick customizing quick to access toolbar keeni baan arkaynaa waana main bontiga office 2007 aan ku baranayno cashirkeena koowaad waxaan iskaga qaadanaynaa bilow halkan waa sectionkii paragraphka farta sida suu hadba noqon lahaa documentigeena suu noqon lahaa halkan ayaa waafajinaynaa halkan waa sidaan u qurxin lahayn oo styleka yeelan doonto qoraalkeena iyo change styleka uu samaysan doono documentiga uu noqon doono find waa raadintaan raadin lahayn halkan waa replace markaan wax bedelayno waa meeshaan ka tagi lahayn halkan waa editing inaan samayn karno select editing inaan samayn karno halkaas waa all waxaan sameynaynaa sections kala duwan baan arkaynaa paragraphka baan arkaynaa fontiga baan arkaynaa clipboard baan arkaynaa style baan arkaynaa iyo editing baan arkaynaa marka waxaas oo dhan baan arkaynaa marka halkan waa main bontigii office ayaan ku guda jirnaa customizing quick access toolbar waa meesha ugu muhiimsan oo uu ka soconayo spelling grammarka hadduu noogu xirnaanayo haddii aan ka qaadno wuxuu noqonaysaa farteen isdhaxyaac baa imaanaya laakiin haddii grammar aan ku xirna oo nagu xiran yahay oo tig inuu saaran yahay waa muhiim jiddan grammarka inuu tig inuu saaran yahay sababtoo ah haddii tigti aan ka qaadno waxaa iska qormay waxaan doona inaan qorno oo sax iyo qalad ma noo kala saarayo laakiin waa marka aan rabno inaan ka waran grammarka uu noo saaran yahay oo halkan grammar tigta noo saaran yahay wixii qalad ah oo english aan qorno asaan inoo saxayo taasna waa taas marka waxaa muhiim jiddan ah qoraalkeena ugu horeeya waxaan dhihi karnaa waxaan diyaarinaynaa xogaa documenti yar baan diyaarinaynaa doonayaa in aan wada shaqayn la sameeyo dhammaan ardayda dhigata Somali Star Online laakiin haddii aan saaro highlight saaro waxaa imaanaya toolbarkii halkaan ahaa halkan ayaa la ii keenayaa kani waa toolbar halkan la ii keenay oo si fudud ayaan ku helayaa oo fartiiba hadduu wax ka bedelida rabo haddii la rabo tiradii in la kordhiyo lambarka farta haddii la kordhinayo colorka haddii la bedelayo farta haddii noocyadeeda la kala saari doono paragraphka haddii laga isticmaali doono oo la samayn doono in la kala duwo ama in centerka haddii la keenayo build haddii laga dhigayo atlantic hadday noqon doonto farta iyo haddii oo ay imaan doonto colors ay imaan doonaan halkan oo hadda waa no color marka cashirkeena koowaad wuxuu noqon doonaa sidaan toolbarka u kala baran lahayn marka clipboardiga kan la yiraahdo oo noo xayeysiiyo clipboardiga wuxuu noo keenayaa mar walba markaan highlight isticmaalno waxaa noo soo baxay kan ayaa noo soo baxay oo ah toolbarka yarka ah oo aan isticmaalayno marka waan ka qaadayaa haddii aan ku soo noqdo oo aan highlight saaro isla marka waa ka wuu imaanaya taa waa fahnay halkaan marka maxaa ku arkaynaa optionkan waa optionkan clipboardka weey oo clipboardka weey quick access toolbarka meesha muhiimadda ay ka socdeen waa cashirkeenu ka socon lahaa weey oo customizing toolbar haddaan iraahdo waxaa qarsoomaya toolbarkii weynaa baa qarsoomaya haddii aan soo ceshisto iraahdo waxaan dooranayaa keliya waa soo ceshinayaa isla markiiba marka cashirkan maanta bilowga kan aan ku qaadanay waa lesson 2 lesson 1 waa installation buu noo ahaa lesson 2 na kan ayaa noo ahaa lesson 3 iyo lesson 4 iyo lesson 5 baa inoo soo soconayo marka cashiradeenii taxanaha ahaa oo aan ku baranaynay Microsoft Word 2007 Office 2007 aan ku baranaynay waa kan Office 2007 marka wuxuu kaga duwan yahay office-yada kale calaamad office walba oo jira wuxuu leeyahay calaamad u gaara ayuu yeelan doonaa Office 3 gii halkan fail ayuu ahaa kan waa home marka office-keeni oo hadda documentiga aan ka shaqeynayna haddii aan ku soo noqdo halkan haddaan imaado oo outline-ka waxaa isbedelayo naqshad dhan way isbedelaysaa outline-kii waxaa noo yimid toolbar cusub oo aanan weli hore u arkin noocaan weligeen ma arkin oo kii hore kumaan ogeyn marka waxaan kusoo noqonayaa keenii hore sidiis ayuu noogu soo noqonayaa oo toolbarkii outline-ka waan laga qaadayaa marka cashirka xiga ayaan kasii bilaabaynaa oo halkaan kala socon doono oo aan Somali Star Online Training ka baranaynin marka cashiradeen iyo taxanaha ah way noo soconayaan marka Somali Star Online Training waa Office 2007 ardaydii jecleed iyo Windows 2007 cashiradii nooga soconayay ayaa noo soconaya marka Somali Star Online Training waa protocol of the language abaan hore u soo aragnay protocol of the computer and management baan baranaynaa iyadoo Word aan ka bilawnay Excel aan ku xijinayna Access iyo PowerPoint sidaa darteed waa injineer Maxamed Axmed Baro idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaah wa barakatuh